اسم قلي داوشو عن صاحب يل halkani waa janalka dabagalka wararka waa 11 bisha 7 2019 wararkan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamida xukuumadda Soomaaliya oo war kale ka soo saartay in Ethiopia ay isku keenayso madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta Puntland oo sheegtay in qayra uu diiday hab maamuus oo dhaweyn sare ay u diyaariyeen iyagoo fowdo ku tilmaamay booqashadiisii waqooyiga Galkacyo laba wiil oo Muqdisho lagu toogtay iyo ururka Al-Shabaab oo war ka soo saaray sababta ay u dileen dad rayid ah oo mar kale lagu laayay duleedka magaalada Galkacyo duqa Muqdisho oo sheegay in xildhibaan Cabduqaadir Cosoble uu huwan yahay magac qabiil isla markaana aflagaado uu ku hayo horumarka Muqdisho iyo xildhibaanada Hirshabelle oo mooshin ka diyaarinaya madaxweyne Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino ha iloobin in aad gambaleelka furato qaybta hoose ee faallada commentiga aad nagula wadaagto aragtidaada sidoo kalena muuqaalka aad la garayso haatanna warkiyo fidsan saacadii la soo dhaafay waxa warbaahinta Kenya qaarkood iyo kuwa gudaha Soomaaliya ay qoreen in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali uu dhaxdhaxaadinayo Soomaaliya iyo Kenya isla markaana labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay kulmayaan hayeeshee waxa warkaasi been abuur ku tilmaamay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad waxaana xusid mudan in warkan ku saabsan wada hadal la galay badda Soomaaliya ay maalin ka hor beenisay madaxtooyada Soomaaliya wasiir Cawad ayaa sheegay in warbaahinta Soomaalida ay mar walba ku dhiiradaan wararka been abuurka ah waxaana wasiirku uu sheegay in go'aanka la xiriira badda Soomaaliya oo Kenya muranka gelisay uu weli sidiisa yahay isla markaana uusan jirin wada hadal laga galayo warbaahinta Kenya ayaa dhowr mar qortay warar la xiriira arrimaha Soomaaliya kuwaas oo aan dhicin hase yeeshee weli dad badan ayaa aaminsan warbaahinta dalkaasi iyadoo oo la og yahay in Soomaaliya iyo Kenya uu ka dhaxayo khilaaf ka dhashay badda Soomaaliya oo Kenya muranka ay gelisay horta mid hore maadaama saxaafadda ka hadlaynay arintaas waxay kamid tahay arrimaha aan ka hadlaynay oo ah in dadkii ay ku dhiiranayaan inay fake news inay war abuuraan wasaaradda anigu aan wasiirka ahay ayaa been laga abuuraa waraaqo wasaaraddu leedahay la qoraa saxiixayga la saara waxa la wasiirka saasay dad baa waxaas isaga dhiirada marka in warar aan jirin oo dawladdu inkirtay in qof uu naftaada kaaga xoogaalsan yahay hadda ma taqaanid si aad uga jawaabtid annaga iyo Kenya waxaan nahay dal darisa xuduudayada aan ilaashanayno difaacanayno haddana keiskii la isku hayay ama qadiyadii la isku hayay hortaalo maxkamadda cadaaladda adduunka dhanka kalena Puntland ayaa sheegtay in ra'iisul wasaare Khayre uu diiday hab maamuus sare oo soo dhaweyn ah oo Puntland ay u diyaarisay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in uu diiday hab maamuuskii iyo soo dhaweyntii ay u diyaarisay Puntland xilli shalay gelinkii dambe uu booqday waqooyiga magaalada Galkacyo Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo wasiirro kale ay Garowe uga tageen sidii ra'iisul wasaaraha ay ugu soo dhaweyn lahaayeen magaalada Galkacyo qaybteeda waqooyi wasiirka ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu u dhaqmay si mas'uuliyad darro ay ku jirto uuna ka doortay soo dhaweyntii ay ugu talagaleen in uu dhaxgalo dhalinyaro sidoo hadalku dhigay sidoo kale wasiir Dhabanacad ayaa xusay in isimada iyo waxgaradka ay u diyaariyeen soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha ay ka raalgelinayaan waxa dhacay in ay arintaasi suurtagali weyday ayna ku adkaysteen ra'iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqeynayay inay yiraahdeen annagu meeshan uma imaan in maqaam naloo sameeyay protocol uma imaan inaanu shirar gallo oo dadka aanu la hadallo laakiin waxaan u nimid waxaanu rabnaa inaanu dad banaanbax sameynaya aanu dhex gallo arintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer Puntland qaybihiisa kala duwan oo ismadu ugu horeeyaan
odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhalinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan ayadana sidaas la mid ah in loogu diyaar garoobaya haddii la haydmo halkan waxaanu ku haynaa jadwalkii aan idinla wadaagaynaa aan u diyaarinay maantay oo aan rabnaa inaan saxaafadda la wadaagno jadwalkaasoo koobaya habmaamuuseedka aan ugu talagalay soo dhoweyntiisa oo ay ku jidho xataa inuu dego oo ku nasto dhanka Puntland muddada uu joogo arrintaasoo ay ahayd arrin raalli la isaga ahaa Puntland iyo Galmudug hase yeeshee markii aanu galabtay ugu dambayntii ugu tagnay deegaankii uu ka deganaa dhanka Galmudug ayadoo xoogaa dib u dhac jiray oo farsamo oo la xiriiray in la saxo arrimo dhanka amniga xoga la xiriiray waxaa dhacday hanaankii iyo maqaamkii aan ugu talagalay si mas'uuliyad darro ku jidho inuu ra'iisul wasaaruhu u diiday uuna yidhi anugu hanaana raaci mayo umana socdo inaan isimo u diyaarsanaa iyo odayaal iyo waxgarad aan la kulmee iyo dad su'aal ay weydiinaya waxaan u socdo waxa weeye dhalinyaro meel iigu diyaara inaan dhex galo dhalinyarada inuu dhex galo oo la hadla annagaba diyaar u ahayn jadwalkay ku jidhaa laakiin sida uu maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas'uuliyad ra'iisul wasaarenimo waxaan leeyahay ma ahan xasan cali khayre waa saaxiibkay shakhsiyan aniga laakiin ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo dawladda federaalka ee Soomaaliya waanu ognahay maantay heerka ay marayso meeshii laga keenay in lagu jiro geedi socod aad u qodxa badan oo loo baahan yahay dad mas'uuliyad dheellitiran ka muuqato oo ka gudbiya meesha maanta ay joogto oo u gudbiya dawladnimo haddii aan aragnay wixii maanta ilaahayna tusay waxaan maqli jiray cimrigaaga dheeraada geel dhalaayana waa ku tusaa maanta wixii aanu aragnay waxay ahayd wax u baahnaa dad badan oo Soomaaliyeed ma reer Puntland dad badan oo Soomaaliyeed nala arkaan waxa dhici karta kuwa badan inay hore u arkeen laakiin iska aamuseen waxaan leenahay waxaan cududaar ka siinaynaa isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii iyo cuqaashii u diyaarsanaa inay soo dhoweeyaan oo ay ku soo dhoweeyaan madaxtooyada Puntland caaway ra'iisul wasaaraha wixii dhacay oo aysan ahayn wax mudankooda ah waxaan rajaynaynaa haddii la ahaydmo arrintaas inay noqoto mid ay ka dhalato faham aragti dheer leh saaxiibada ayaan ku rajaynayaa aad baan wasiirku waa mahadsan yahay sida uu u faahfaahiyey shir saxaafadeedka ujeedadiisii intii badnayd waxaa sheegay wasiirkayga horreeyay saaxiibkay ah waxaan rabaa inaan ku daro oo aan ka bilaabo inaan marka u horeysa u mahadceliyo dhammaan dadweynaha reer Gaalkacyood oo si sharaf leh oo mas'uuliyad ku jirto noogala shaqeeyay labadii maalmo ilaa shalay toole ilaa maanta sidii aan hawsha imaanshaha ra'iisul wasaaraha ay ugu dhici lahayd sida ugu wanaagsan waxaan uga cududaarayaa isimada ganacsatada aqoon-yahanka ururada bulshada waxaan uga cududaarayaa daalkii badnaa iyo sugitaankii faraha badnaa oo ay sugeen ra'iisul wasaaraha iyo imaansho la'aantiisii aad iyo aad baan ugu cududaarayaa waxaan rabaa inaan sheegno dawladda Puntland waa dawlad dhisan 20 sano soo dhisnayd waxaa lagu yaqaanaa hab maamuus waxaa lagu yaqaanay sharaf waxay leedahay kala dambeyn iyo nidaam dawli ah oo ciddii imaanaysa iyo ciddii hawl ka qabanaysaba ay ku timaado sidii wasiirku sheegay wasiiro gudoomiyayaal gobol mas'uuliyiintii dawladda ee gobolka Mudug annagoo iswadana waxaan halkaan u nimid una diyaar garoobaynay ra'iisul wasaaraha imaanshihiisii
waxaa runtii aad iyo aad nasiib darro u ah imaanshihii ra'iisul wasaaraha iyo dadweynaha gaalkacyo oo loo sheegay inuu imaanayo inay u baaqato oo ay u suurtogeli weydo shuruud looga dhigay in durbaan loo tumo ra'iisul wasaaraha si sawir u qaato siday noo sheegeen ayna uga muhiimsan tahay sawirka dadka loo qaadayo laga qaadayo dadweynaha la kulankoodii waxyaabihii dowladnimo oo laga wada hadli lahaa waxyaabihii shacabku ay ka hadli lahaayeen inay taa uga muhiimsanaato aad iyo aad baan ay nasiib darro u tahay waxaan rabaa inaan caddeeyo marka safarkii ra'iisul wasaaraha ee loo bixiyey socodka nabadda inuusan ahayn socod nabadeed ee uu ahaa socod burburineed socodkaas oo lagu burburinayay galmudug lana rabay in jilaafo loogu dhigo dhibna loogu geysto dowladda puntland iyo dadkeeda waxaan u sheegaynaa marka dadweynaha reer puntland iyo guud ahaan dadweynaha soomaaliya in ra'iisul wasaaraha iyo wafdigii la socday sida ay u dhaqmeen maanta ilaa shalay aysan ahayn si mas-uuliyadu ku jirto iyo sidii annagu aan u nimid halkan iyo maqaamkii aan rabnay inaan ku soo dhaweyno intaba mid baalmarsan inay ahayd bismillahi raxmaan raxiim saa la socotaanba magaalada gaalkacyo waxaa nimid bishii 9keedii waxaanu ahayn 4 wasiir oo u timid soo dhoweynta ra'iisul wasaaraha waxaana qorshe u ahaa ra'iisul wasaaraha in lagu soo dhoweeyo maadaama gobolka mudug magaalada gaalkacyo uu yimid dhinaca galmudug uuna sida caadiga ahayd imaanayay dhanka kaleeto ee puntland inaanu si hab maamuusa oo mudan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya hab mudan inaan ku soo dhoweyno waxaanu la xiriirnay madaxda gobolka madaxda degmada waxgaradka odayaasha isimada waxaanu u diyaarinay habkay u soo dhoweyn lahaayeen runtiina waxaa halkaa ka qabsoomay arrin la isla gartay ra'iisul wasaaraha in lagu soo dhoweeyo hab u qalanta maamuus meesha uu joogo waxaanu diyaarinay jadwal aad u fiican saa la socotaa maantay maamuuskii iyo soo dhoweynta ugu talagalay waxay ahayd dowladda puntland iyo wasiiradu inay hogaamiyaan arrinta jirta marka waxay tahay barnaamijka u dejinay ra'iisul wasaaruhu waa ka leexday wuxuuna la yimid ajende iyo qorshe aan ku jirinin jadwalka aan u dejinay saa la socotaanba markay timaado madax in la soo dhoweeyo oo halkan lagu soo dhoweeyo dhinaca kalena 2 wiil ayaa muqdisho lagu toogtay iyadoo ururka al-shabaab ay warka soo saareen sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho kooxo hubeysan ayaa xalay halkaasi ku dilay 2 wiil oo dhalinyaro oo ka mid ahaa dadka deegaanka 2 wiil ee dhalinyarada ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray Ismaaciil iyo Maxamed waxaana la sheegay in halkaasi ku lahaayeen stuudiyo iyo footo sawirada lagu galo raggii dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta ay ka fuliyeen dilkaasi kahor inta aysan halkaasi gaarin ciidamo hubeysan oo wata gaadiidka dagaalka kuwaas oo halkaas ka qaaday meydadka 2 ruux ciidamada ammaanka ayaa baaritaano ka sameeyay xaafadda uu dilka ka dhacay mana jirto cid falkaasi loo soo qabtay oo la shaaciyay kooxda al-shabaab oo war ka soo saartay dilka 2 wiil ayaa sheegtay inay ahaayeen xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka ee Soomaaliya war lagu baahiyay idaacadda Andalus ee al-shabaab ayaa kooxdan waxay magacyada 2 wiil ku kala sheegtay Ismaaciil Bootaan Qayre iyo Cabdi Jareer al-shabaab ayaa sheegtay inay labaduba ka tirsanaayeen nabad sugidda qaybta dharcadka ee aan ku labisnayn dharka ay caanka ku yihiin ciidanka dawladda balse ma jirto cid xaqiijin karta warkaasi geesta kalena faahfaahin ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday dad rayid ahaa oo ku socdaalaya qaybo ka mid ah gobolka Mudug dabli hubeysan ayaa lagu soo waramayaa in xalay gaari rakaab ah oo marayay agaarka deegaanka Saaxo oo hoostaga magaalada Galkacyo ay ku fureen rasaas geysatay khasaare dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyootay weerarkaasi halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan sida ay xaqiijinayaan ila deegaanka ah raggii ka dambeeyay falkaasi ayaa goobta isaga baxsaday sida wararkan ku helino dadkan shacabka ah ee la rasaasiyay ayaa ka soo ambabaxay degmada Goldogob waxaana la sheegay inay ku soo jeedeen magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug lama oga ujeedka loo laayay dadkaasi mana jirto weli wax war oo ka soo baxay maamulka gobolka oo ku aadan dhacdadaasi inta badan waxa gobolka Mudug ka dhacay dilal qorsheysan iyo dagaallo salka ku haya aanooyin qabiil
dhowaan ayay ahayd markii dad rayid ah oo gaaraya 13 qof lagu laayay magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ka soo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. dhinaca kalena duqa Muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa ku tilmaamay qaswadayaal xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo uu sheegay inay diidan yihiin horumarka magaalada Muqdisho. injineer Yariisow oo la hadlayay telefishinka Dalsan ayaa sheegay in xildhibaano uu ka mid yahay Cabdiqaadir Cosoble ay magac qabiil iyagoo raba in ay ku hadlaan ay caasimada aflagaado ku hayaan kana soo horjeedaan horumarka magaalada Muqdisho. waa sidoo hadalku u dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir. caasimada aniga ayaa gudoomiye ka ah duq magaalana kaga ah shacabka ayuu yiri gudoomiye Yariisow. maqaamkeedana shacabka Soomaaliyeed oo wakiil ka ahay waan ka wada tashanay ayuu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xusay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ay diyaar u yihiin in nidaamka federaalka laga hirgeliyo caasimada maqaamkeedana la dhameystiro. ugu dambeynna xildhibaanada Hirshabeelle ayaa mooshin ka diyaarinaya madaxweyne Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka. xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa bilaabay in ay saxiixaan mooshinno ka dhan ah madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Cismaan Barre Maxamed oo haatan ku sugan magaalada Beledweyne. xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa kulamo gaargaar ah waxay ku yeesheen magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. xildhibaanadu waxay ku eedeeyeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Hirshabeelle xil gudasho la'aan iyo ku tagrifal awoodeed iyo in ay jebiyeen qodobo dastuuri ah. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa u diray fariimo xildhibaanada baarlamaanka si ay isugu yimaadaan kulamo caadi ah. waxaa weli taagan khilaaf ka dhashay xiristii uu gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre uu ku xiray kalfadhigii baarlamaanka fariin uu u kala diray xildhibaanada Hirshabeelle isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa horey xilka uga qaaday madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble xilli uu ka maqnaa caasimada Hirshabeelle ee Jowhar. guud ahaan war wixii dal iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen channelka dabagalka wararka waa naginta. haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biro subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino. ku mahadsanid inaad nagu soo biirtay.